السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سولو هذا أصحابتها سولو هذا لينكم مقال واحد يكسوق بنية 10 كيني استياد وكم إذا 10 ديني استعناها هاي سي اس اس كا 10 كانوا حنكوا هذا دونا وحلو يقانو ديسبلايجا أما ديسبلايجا مركز سي اس اس كلا تشوفوا وقرنتي ومحي ديسبلاي سي اس اس ديسبلاي محوي هاي محوسة قبتها. CSS display is the most important property of CSS. waa property-ga ugu muhiimsan marka CSS kala joogo property-ga ugu muhiimsan marka CSS kala joogo which is used to control kaasoo loo isticmaalo in uu controlo inuu maamulo the layout of the element layout-ka qaab chiefka qaabku u dhisan garaysan yahay elementigaga property iyo element waan kala fahmanaa wuxuu yahay property waxaa la dhahaa waxa value-ga qaata tusaale ahaan display margin padding aan ka soo hadalay body waxaan leeyahay background waxyaabahaas oo dhan ee waxaa la dhahaa property la dhahaa elementina waxaa la dhahaa tag furan iyo tag xidhan iyo content-ga ku dhex jira intaas waxaa la isku dhahaa element la isku dhahaa. It specifies how the element is displayed in the browser. tusaale ahaan browser-ka say uga soo baxaso elementiga uu uga soo baxayo ayuu ku sheegaya. Every element has default display value according to its nature. tusaale ahaan macnaha wax kasta oo element kasta oo aad HTML ka ku qortid wuxuu leeyahay default display si default u soo baxaa hadda qaabkaas hadduu kugu qurux badnaan waayo displaygiisa waad bedelaysaa habka kugu soo baxay browser-ka uga soo baxayo waad bedeli kartaa. Every element on the web page element kasta web page-ka ku jira is a rectangular box wuxuu leeyahay rectangular box rectangular ayuu leeyahay and the CSS property defines the behavior of that rectangular box. CSS kuna wuxuu ku hagaajinaya ku define gareynaya rectangular ka boxkaas way display-gu hadaba value ayuu qaataa waatan sheegnay in property wuxuu qaataa value marka display-gu waa value property-gu qaataa plan aragnay. There are flowing CSS display values which are commonly used. waa inline block iyo none miskalo waxaa jira la yiraahdo run in marka kaas laakiin kuma soo darin laakiin commonly lama isticmaalo ka afartana inta badan la isticmaalaa. Okay hadaba CSS inline wuxuu qabtaa inline display wuxuu qabtaa the inline display takes the required width only. inline wuxuu qabtaa line ku matalan waa sidan oo kale line kaas hadda ugu horeeya halka ka bilaabma break ku dhamaada hadda wuxuu qaatay required width loo baahnaa buu qaatay waayo halkaas browser-ka qoraalkiisa halkaas u gaaraya waxaan leeyahay shaashadayda PowerPoint-ka marka hadda la kiciyo halkaas ilaa halka inuusan dhaafin halka inuu ka bilaabmo halkaana uusan dhaafin baa loogu talagalay waa intii loo baahnaa marka hore loogu talagalay waa width loogu talagalay laakiin haddaan u baahanahay ka waran halka joogsiga wixii ka dambeeya inaan line cusub ka dhigo kaas ma aha required width ma aha waxaan width-aan anigu gacantayda ku samaystay marka inline-ku wuxuu qaataa isagu required width oo ah inuu line-ka halka ka bilaabmo ilaa halka inuu socdo haddii qoraalku sii bato inuu mar labaad line cusub ka bilaabo laakiin qoraalku hadduu matalan ba line-ka deeqi karo inuusan kala jabin ee line-ka deeqsiiyo kaas waxaa la dhahaa inline display. marka it doesn't first kuma khasbayo line-ka ama qoraalka the line kuma line break kuma khasbayo in line kala jabiyo kuma khasbayo inline so the flow of the text qoraalka soo socda doesn't break inline example ana inline ma yeelanayo inline break ma yeelanayo. Okay ma kala jabinayo line hadda waxaad ku aragtaa halkan ever paragraph-ka ugu horeeya waxa ku qoran hello java point kan ku xiga waxa ku xiga b tag waxa ku xiga hello java tutorial kan waxa weeye SQL tutorial HTML tutorial intaas hadda mid walba paragraph haddaan display-giisa inline ka dhigo afartaba wuu isku daba taxaya kala jabin maayo hadda kan way kala gogo'ayn soo ma kan waa line gaar ah kan waa line afartaba hal line buu ka dhigaya haddaan ka dhigo inline haddaan ka dhigo balayno aragno. Okay xaggan waxa yaala page HTML ayaa yaala hal b ayaa igu qoran b-dan aan qoraalkan ka taatiro aan ku qoro matalanba hello Lancome
252 mar labaad ayaan b qoray waxaan idhi Java tutorial haddeer waxaad aragtaan waa afar bidi oo kala nooca afartaa b haddii aan inline ka dhigo displaygooda hal line bay isku wada noqonayaan aan xagga seef dhaho browse aan tago css kayga maadaama wuxuu afartuba ay hal b ahaayeen selectorka aan soo qaadanaya waa b keliya macnaha b-yadu hal b-dana wada saameynaysa tusaale ahaan kan waa b 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 waa multi selector baa la dhahaa saddex afartoodaba b un baan usoo qaadanaya marka afartaa wuu saameynaya css ka aan ku qoraa waxaan dhahayaa display inline safe baan leeyahay browserkan ku noqonaya halkan ku noqonaya opening browse baan leeyahay soo jeedid hello Lancome 252 waa video koobaad Java tutorial CSS tutorial HTML tutorial wixii wuxuu ka dhigay hal line buu ka wada dhigay okay qiimihii labaad ee aynu soo sheegnay muxuu ahaa value labaad ee qaadan jirtay display waxay ahayd inuu ahaa inline bal aan aragno inline wuxuu qabto horta aynu ku noqono PowerPoint-geeni waxaan leeyahay inline block value labaad baa jira value labaad waxaa la dhahaa inline block wuxuu qabtaa inline block wuxuu la mid yahay very similar to inline element wuxuu si aad macnaha ugu egyahay ama uu la mid yahay inline-kii inline block wuxuu la mid yahay inline-ku la mid yahay laakiin difference-ga kaliya u dhexeeya waxa weeye waxaad siin kartaa height iyo width bas height iyo width baad u assign garayn kartaa elementigaaga tusaale ahaan waa menyada oo kale baa inta badan loo isticmaalaa markaad menyada website taxdid waxaad siinaysaa height iyo width baad siinaysaa markaasaa inline block ka dhigaysaa laakiin inline kuma qaato height iyo width laakiin kan inline block uu qaato height iyo width tusaale ahaan bal intan oo kale aynu qorro html-ka intan halkan ay noogu qoran tahay in value ka dhigno inline block okay kabacdi aynu siino width aynu siino content pixel height aynu siino 200 pixel soo jeedid hadda waxaa keenaya inay kala durdurkaan oo ay isku dhexyaacaan waa height-kii width-kii aynu siinay haddaynu height-kii width ka taatiro sidii bay ku noqonayaan macnaha laakiin height iyo width un baad siin kartaa tusaale ahaan width-ka waan yareynana waxaan ka dhignaa width-kan ku badinay matalanba 5 kaliya 4 pixel baan siinanaa height-kana waxaan siinanaa 3 pixel okay waa isfulfuleen wixii dhaqaad iska koreen taas waxaa keenaysa waa height-kan iyo width-kan aynu siinay laakiin haddaynu ka dhigno inline haddaynu ka dhigno wax saameyn ku yeelan maayo waxa loo yaqaano display wax saameyn ku yeelan maayo okay value-ga saddexaad ee waxa weeye waa block isagu see uu soo bandhigaa isagu wuxuu u soo bandhigaa they make line break waxay sameeyaan line break buu sameynaya before and after halkii matalan Java tutorial markaan dhaho xagga horena line break ku ka dhigaya xagga dambena line break ku ka dhigaya balna aragno salaan haydi block taas ka dhigaya line halkan ku kala jibinaya line break ku ka dhigaya halkan line break ku ka dhigaya halkan line break ku ka dhigaya dhan walba line break ku ka dhigaya markaas mid walba wuxuu ka bilaabaya line cusub waxaa jira value kale oo la yiraahdo none none isaga hadda tiraad waad qarinaysaaba display-gii oo dhan khadkad ka saaraysaa waxa display yeelis hadda none tiraad hadda soo celiyo aan ka dhigo in line-keeni aan ka dhigo عشان كده نستدعي انت سكوية هاي أدي أدبد ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.